maanta waxaan isugu kin yeedhay inaan idinla socodsiiyo waxa ka jira beledweyne. beryahan dambe waxa soo batay wax la yidhaahdo isbarbaryaac. haddii uu isbarbaryaac yimaado taladu waa lun. inaad xisaabtantiin oo xaan nagu xun xaan noosan adinkaa laydinka rabaa. isbarbaryaac hadduu yimaado dadku waa lumiya, nin walba waxbuu sheegayaa, wuxuu rabuuna sheegayaa. warqaddan si fiican ha loo dhegaysto. anigu ma qorin, anigu warqadaan qoray maaha. meelahan wararka lagu sheegto ama lagu caytamaba aan idhaahdeen ayaan ka dhex helay. akhri cali. cabdi xuseen waa kaaga mahad celinaynaa abdeytka aadna siisay in shirka uu raalli ka yahay ugaas xasan. guddiga waa mahadsan yihiin isxilqaankii ay ku tageen beledweyne iyaga oo soo qanciyay ugaaska. ciid mubaarak. intaas maxaa dheer waa anigu shirna ma diidin mana oggolaan. qofka bani aadamka wax wuxuu oggolaan karaa ama diidi karaa markuu talada dadkaasu wadaan oo wax ku leeyahay. anigu wax talaahan ku lahay ma jiro. nimanaa xambarkiin meeshaanan ku shiro, bartaanan ku shiro. waxaa laygu yidhi kiliib noo duub. kiliib noo duub maxay tahay waa adigu noo hadal. war ninka aniga idhahaayo noo hadal ama kiliib ii duuba wuxuu rabaa intuu ka yimid xagguu go'aanka ku soo gaaray, xagguu u socday, xagguu ka yimid. waayahay sidaa xamar lagu qabto ragaa go'aan soo gaaray. raggii go'aankay soo gaareen waa la soo qaaday, beledkaana la dhex keenay. beledkii haddii la dhex keenay waxay dhashay kiliib noo duub. kiliibka dad badanaa laga yaabaa oo naga mida inayna garanayn. waxa waaye kiliibku adigu noo hadal. anigu yaan la hadlayaa marka. noo hadal marka la yidhaa yaan la hadla. waa su'aal. waxa weeye xawaadla noola hadal. war anigu wax meel laga keenay oo waxa loola jeedo iyo waxa ka dambeeya aana garanayn maan xawaadlo u sheega. jawaabtu waa maya. waayahay anigu kiliibkii waa diiday. shiraan diidayna ma jiro, shiraan oggolaadayna ma jiro. maxaa sababay? waxaad sheegi waa inaad taqaano meesha laga soo abaabulay iyo waxa loola jeedo iyo wixii ka dambeeya. anigu waajibkayga waa aqaan. waxaan sheegayna waa aqaan. kiliib noo duub macnaheedu waxa waaye shir xawaadla noo iclaami oo xawaadla noola hadal. dal iyo dibad shiraa jira dheh. war anigu waxaanan ogeyn meel laga keenay iyo meel loo wado iyo meel loo socdo waan xawaadlo ugu yeedha. jawaabtu waa maya. xawaadle xarunta xawaadle waa beledkan. ninka xamar ka yimi oo xildhibaan ahaa ama ah ee aan gargar xawaadle weydiiyey ee yidhi ku siin maayo ama ma haayo ama bixin maayo, labada midkuu raba ha yidhaahdo. iyo dan xawaadlaan wadnaa. xawaadlow isqabadsiiya labadaa kelmadood. adinkaa laydinka rabaa inaad isqabadsiisiin. gargarkii yaan diiday iyo maslaxa xawaadlaan wadaa. adinkaa laydinka rabaa inaad isqabadsiisiin. waa wax adinka idin sugaayo, waa wax adinka idin yaal, waa wax dantiinna.
waa wax ku xiran jiritaankiina. ninka warqaddaan qoray marka beledkaanuu joogaa xuu i weydiiyey xaan diiday xaan oggolaaday wuxuu aniga hadday i qoseeyaan ama xawaadlo qoseeyaan waa diidi karaa waana oggolaan karaa laakiin waxaanan aqoonin iyo meel laga keenay iyo wax loola jeedo aniga ima qoseeyaan dadkii watay u taalla waana xawaadlo waxaa lagu jiraa marka wakhti xun barlamaan waa la sheega waa soo socdaa dad badanoo wax rabo waa ku dhex jiraan dadka haddii amuurtu ay tahay barlamaanaa soo dhowa maantaan xawaadla xasuusanaa maya aniga wax ay khuseeyo oo waajibka ah oo layga rabo wixii jira inaan dadka u sheego beledkan shirar badanaa ka jira xawaadla intuu fadhiisay asoo kulansan wax go'aana oo ka soo baxay ama la gaaray ama la sheegay ma jiro nin kasta oo afka kala qaadan wuxuu leeyahay dan xawaadlaan wada warbariiska lagu karinaa beledkan oo dharayow hadumin ah lacagta lagu karinaa intay ka timaadaa may sheegi kartiin lama yaqaan yaa bixiya lama yaqaan laakiin waxaan idiin sheega qof kasta oo tilaab qalada ku tillaabsado inaan ogahay ha ogaado dadka dibadda jira waxaan la socodsiinayaa anigu shir ma aclaamin mana sheegin wakhtigay munaasab tahay anaa sheegaayo waxaa la yidhi silaa ka jira beledweyne waxaa loo baahan yahay 200 kun oo kharash su'aal marka war ninka beledkiisa imaanayo oo dadkiisa imaanayo oo tikid $2,000 soo goosanayo hadduu shir jiro muxuu u baahan yahay kharashka la sheegaa oo 200 kun ah waxaa loola jeedaa yaa qaadanaa miyay u socotaa waxawaadlaa lagu dumina bas xawaadlaa loogu dhiso wax loogu qaban wax yaqaan male haddaba waxaan idiin sheegayaa hawaadle isbarbaryaac waxba tari maayo nin walboo ogow qof walboo waajibaa saaran waajibkiisa ha ka soo baxo tala xawaadle shiray ku go'daa laakiin koox iyo koox iyo koox oo ninba dhinac u ordaayo ama ninba dhinac u jiidaayo ama cid kale loogu shaqaynaayo tala xawaadle kama go'do aniga waxa ila shaqeeyo nabadoonnada iyo aniga wixii naga soo baxa hawaadle wax ku qabsada laakiin nin ordaayo oo xamar ka yimid iyo sheeko xamar laga soo abaabulo ma soconayso haddaba ha la ogaado qofka isku daya inuu ka shaqeeyo dhibaato xawaadle inaan laga yeelayn ha ogaado ninkii xawaadlaha u beledkaan imaana waa imaan karaa xawaadle waa shirin karaa waa la dhegaysan wuxuu sheegay shirka xamar laga wado meeqa jeeraa la aclaamiyey meeqa jeeraa la sheegay dibaan u dhigno dibaan 3 jeer baa dib loo dhiga base 4 ya 3 jeer baa hino waayahay maxaa dib loogu dhigay haddii maslaxa xawaadlo la wado waxaa loo keeni waaya beledkan shirka wuxuu u socon waaya xamaraan tegi ninkii bayaankii shirkii xamar lagu qabtay akhriyey qodobadii sheegay beledkan intuu yimidaa waxaan wadaa yidhi dan xawaadlo war haddaad shirteen ood qodobo sheegteen oo wixiina warbaahinta geliseen shirka waaba dhammaadeen waxa laga soo doonaa beledweyne anugu ma garan
adduunyada haddii la shiro oo warku warbaahinta galo waa dhammaaday shirku ninkii warbaahinta ka akhriyay qodobada aa yidhi haddana dan xawaalaan wadaa waayahay waxaan ku yidhi anugu markaa xamar teg ma baaqaad dirayseen intaad shirtiin ood go'aan soo gaartiin ood warka soo qaadaan oo xawaalo dhex keentaan waa wax la fahmi kareen haddaad shirteen ood go'aan gaarteen oo qodobadii sheegteen waa dhammaaday shirka aragtidayda waxaan u arkaa inaad baaq dirayseen baaq yaa u dirayseen intaad baaqa u dirteen sheega ama waa la yeela ama waa la diiday ma dhicin in la sheego xawaallow wakhti adagaa lagu jiraa indhaha fura indhihiinnu ha furnaada dadka xamar ka soo safrinaya dhibaatada oo xawaal waxaad ka yeelaysiin adinka idiin taal anagu wax sheegid bas waxa jira waxa soo socda wixii la soo dhaafay saddexdaas qodob anaa layga raba waana idiin sheegi diidmo iyo ogolaasho adinka idinka falanta wax kale oo jira meeshaan ma jiro laakiin waxaan idinkula talina indhihiinna inaad furtaan xamar waxaa ka jira riyaajo urur la yidhaah istanbuul urur la yidhaah iyo mid kaleoo saddexaa beledkaa meeqo ururaa ka jira saddex kale waayahay saddexduna waa xawaalleed bal adigu saddex oo beledweynaha iyo saddex xamara isu keena yah nin qof kasta oo afka kala qaadana wuxuu leeyahay dan xawaallaan wada waayahay ma runaa ma beenah lama yaqaan maalin hore markaan meeshaan ka hadlay shirka nimankii socday waxay sheegeen markay sheegeen oon anugu hadlay shirka waa xiray dad badanaa dhibsaday maxaa loo dhibsan war nimankaanu taariikh ma qorteen 20 ogosaan imaanayna hadday yidhaahdeen taariikhda ayagaa soo gooy ma adinkaa gooy waxaan anugu u xiray shirka inaad la sugtiin 20 ogos markii la gaaro ninku wuxuu soo safriyey ma sheegaayo waa idiin sheega waxaan idinku yidhi 20 ogos nin walba burhidkiisa ha soo qaato inaad la sugtiin dad badanaa dhibsaday marka xoogaa marka waxaad moodaa af soomaaliga midna waa la qayaxaa midna waa sarbeeb yah dadaa dhibsaday xaa loo dhibsaday waa ninkaanu 20 ogosoo amaanaha beledkaanaana shir ku qabanahu yidhi haddaad waxhayso la sug dhib bay leedahay dad badanaa dhibsaday looma baahan ninkii waaw yidhaa reer xamarku wuxuu yidhahdaa ninkii waaw yidhaasaa laga warsugo haddaad dadka ka dhex baxdo adaa lagaa warsugo dhib ma jiro saddex beledweyne ah iyo saddex yah rag waxaa la sheegay guddiyaan dhisaynaa leh beledkan guddiyaan dhisayna guddi ma dhisno waasaa joogo nabadoonnaa joogo guddiga waaba dhisayeed ka laga dul dhisa xooya yah may sheegi kartiin xaajir maxaa u amasteen guddi waa dhisan yahee guddiga laga dul dhisaa ii sheega xawaalo guddi aan dhisayna yaa waaya ninka dhisi kara guddiga hor waa kee guddiga waxaa lagu dhisi karaa go'aan xawaale iyo tala xawaale oo laga munaashaqoodo oo laysla doodo oo la gorfeeyo oo qodob loo qaado laakiin nin ordaa keligiis dad xataa lama socdo guddigaan xawaaldo u dhisan oo xusul duuba anigu ma og
ma ogi awal waxa la digaraba marka inaad indhihiina furtiin inaad wax walba oo beledkiina ka jira aad ogaatiin saddex gudbiyaan sheegay iyo saddex amar nin walbana wuxuu ku leeyahay dan xawaalaa wada idinka idin taala waxaa ka yeelaysiin haddaad wax diidaysiin haddaad wax ogolaanaysiin laakiin anigu shaksi ma aha yaa ninka warqadaa qoray beledkaanuu joogaa maxaan ogolaada xaddii ma jirto because waxaan wax ku leeyahay ama fakar hadday tahay ama garasho hadday tahay ama taakule hadday tahay waxaan wax ku leeyahay waa ka jawaabi karaa laakiin waxaan wax ku lahayn kama jawaabi karo sababtoo aniga mabay khuseeyo nin xamarkii jiraa qabana xawaalaa shirinuu yidhi xawaalla noogu yeer waa kuugu yeer waxadii adaaw nin kasta oo xawaallaa 20 August ay sheegtay nimankii u diyaar garooba waxa dhihi leedahay salaamu calaykum